Dhawaan waxaan u oran doonaa sanadka 2026 waxaana laga maarmaan ah in qofka dhalinyarada uu skills cusub uu barto. Marka haddii aad dhalinyaro tahay, xirfado qoro, xirfadahaasna baro oo waqti geli. Xirfaday doonta ahaato, ama xirfada gacanta laga qabto ahaato, ama xirfada kombiyuutarada looga shaqaysto ha ahaato. Isku day oo kaliya inaad skills aad baratid. Waa xirfada graphic design-ka. Graphic design-ka waa naqshadeynta, qurxinta, samaynta loogooyinka, posterada, flyerska, thumbnailada iyo shahaadooyinka iyo weliba business cardska inaad samaysid. Assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan. Mar kale waxaan kuu rajaynayaa inay maalin qurux badan kuu tahay. Waan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ayaad muuqaalada u daawanaysaan, misana aad subscribe garaynaysaan. Kanaalkeena wuxuu ku dhow yahay 3000 oo qof ayuu ku dhow yahay. Marka waan kaga mahadcelinayaa inaad halkan na soo gaarsiisaan. Bartan waa bar dhalinyaro, waa bar baraarujin, dhiirigelin iyo maaragtay fursadaha dhalinyarada uga faa'iideysa. Marka waa mahadsantihiin. Muuqaalkana waa muuqaal aad u xiiso badan oo haddii aad danaynaysid in 2026 aad skills ama xirfadaha aad baratid aad kaga faa'iideysan kartid. Waxaa lahaa sanad walba dadka waxay isku dayaan ama waxay qorshaystaan inay bartaan skillskaasi oo ay rabaan in ay isbedel markaa dhaqaale ay ku sameeyaan, ama markaa xirfadaas ay u suurtageliso in ay dhaqaale ahaan ay noqdaan dad markaasi bedela dhaqaalahooda ama dhaqaalahooda wax ku soo kordhiya. Marka maanta waxaan kula wadaagayaa ilaa iyo 7 xirfadood oo aan isdhihi karo qofka dhalinyarada haddii uu barto, haddii uu arday yahay oo jaamacad dhigto, haddii uu dugsi sare dhigto, haddii uu yahay qof shaqeeya markaasi waqtiyada firaaqada uu xirfadahan uu ka faa'iideysan karo. Waa skills aan kaaga baahnayn in aad waqti aad u fara badan aad baratid ama waqti aad u fara badan aad gelisid. Kaliyana kaaga baahan in ugu yaraan 3 biloodba aad xirfadii aad daba socotid. Haddii aad ku cusub tahay, haddii aad hore u lahaydna waxaan kula wadaagayaa xirfadahan. Haddii aad hore xirfado u baratay, xirfadii ay ku shaqay waayeen amaba aad fahmi weysay qaabka suuqa shaqada aad ugu soo biiraysid, waxaa jira muuqaal aan ka diyaariyay oo aan qaybta kore soo saari doono si aad ciwaankiisa aad u aragtid. Linkiga hoosena aan soo dhigi doono si markaasi aad halkaa uga daawatid qaabka xirfadahaaga loogu shaqeeyo. Dhawaan waxaan u oran doonaa sanadka 2026 waxaana laga maarmaan ah in qofka dhalinyarada uu skills cusub uu barto. Aniga muuqaalkan kula wadaagaya sanadkan dhala doona hadduu Ilaahay ka raali noqdo 3 xirfad ayaa ii qorshaysan in aan barto oo iigu jiro qorshayaasha maaragtay sanadlaha ah ama qorshahayga sanadka 2026. Haddii aan ku dhaho xirfadaas xirfad ka mid ah waa xirfada gacanta. Haddii aan ku dhaho ma aaminaysaa, waa xirfada dawaarka ama xirfada harqaanka ama xirfada tolista dharka. hadduu Ilaahay ka raali noqdo ii qorshaysan in sanadka 2026 aan anigu isbaro, intaan qalabka soo iibsado anigoo gurigeyga jooga aan waqti geliyo hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Inkastoo xirfado kale ay ka horeeyaan oo 2 xirfadoo kale ay yihiin kuwa mudnaanta aan siinay, haddana waa xirfad ka mid ah xirfadahan rabo inaan 2026 aan ka guul gaaro. Marka haddii aad dhalinyaro tahay, xirfado qoro, xirfadahaasna baro oo waqti geli. Xirfaday doonta ahaato, ama xirfada gacanta laga qabto ahaato, ama xirfada kombiyuutarada looga shaqaysto ha ahaato. Isku day oo kaliya inaad skills aad baratid. Haddii aad ka niyad jabtay inaad skills fara badan aad baratay welina aad ku shaqay laadahay, muuqaalkii aan kula wadaagi doono muuqaalkaas ka daawo hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Marka maxay yihiin marka xirfadaha muhiimsan ama xirfadaha ugu muhiimsan ee qofka dhalinyarada uu baran kara 2026? Marka xirfadahan waa xirfado aad u fudud, xirfado dad badan ay ku shaqaystaan, ay wax ku soo saartaan. Barar kastoo aan muuqaal diyaarinayn waxaan isku dayaa in xirfadaha aadka u fudud ay dadku baran karaan in aan soo xulo. Dhowr marna kanaalkeyga waan kaga hadlay mawduucyadaan diyaariyay inay noqdaan mawduucyo aad u fudud. Xirfada koowaad aan kula wadaagayo waxay tahay wax kasta waxa faro ah
skill inaad baratid waxa furo waa luqad. marka xirfadda koowaad aan kula wadaago waxay tahay learning languageska ama qaabka loo barto luqadaha ama luqad cusub inaad baratid. haddii aan si kale kuugu dhigo, luqadaha ugu muhiimsan ee maanta internetka wax lagaga barto waa luqadda Englishka. marka waxaad barataa qaabka luqadda Englishka loo barto. luqadda Englishka baro oo waqti geli, oo sida wax loogu qoro, sida loo dhageysto, sida afarta qaab ee muhiimka u ah luqadda, inaad ku hadli kartid, inaad qori taqaanid, inaad dhegeysto taqaanid iyo inaad akhri taqaanid. haddii marka luqadda afarta aad ka baratid, waxaad awood u yeelanaysaa wax kasta aqoona, xirfad ama wax kasta ku saabsan inaad baratid, oo weliba si bilaasha aad internetka kaga baratid. marka xirfad koodan kula wadaagay waxay tahay learning new language ama learning languageska, inaad luqad cusub aad baratid. sababtan tan kuugu doorayna waxay tahay, waxaad laga yaabaa inaad tahay qof jecel inuu isaga wax isbaro, qof jecel inuu isaga gurigiisa joogo skills uu barto. marka inaad luqad barat, luqadaad wax ku baranaysidna ay noqoto luqad English ama luqad kale international ah oo kuu suurtageli karta inaad xirfad ama wax cusub aad baratid. marka taa ayaan kuugu xulay. aqoonta internetka taala luqadda lagu qorayna waa luqadda Englishka. marka luqadda Englishka waqti geli, baro, tan sidaasi uga faa'iideyso. haddii luqadda aad baratidna fursado badan ayaa kuu bannaan inaad luqadda dad kale aad sii bartid, inaad ku shaqaystid, inaad shaqooyin iyo fursado aad ku heshid, iyo in adigu naftaadaba ay u baahato ood markaasi qof mawduucyo diyaariya, qof muuqaalo turjuma iyo qof maqaalo qoraba aad noqotid. marka luqadda Englishka baro. marka maxay tahay marka luqadda labaad ee muhiimsan ama aan dhihi karo 2026 inuu qofka barto waa laga maarmaan, waa luqadda content creationka. waa xirfadda content creationka cafwan. content creationku waa skills aad muhiim u ah oo maantan kaaga baahnayn inaad lacag fara badan ama waxyaabo badan aad gelisid. waan dhihi karaa skillska aad ku bilaabi kartid $0 aad ku bilaabi kartid ayaan oran karaa. marka inaad baratid qaabka content creationka lacag looga sameeyo, inaad skillska aad baratid, inaad samaysid muuqaalada, inaad samaysid qoraalada, inaad samaysid codadka iyo sawirada. waayo content creation marka laga hadlayo keliya maahan in muuqaal la duubo, in keliya YouTube laga soo muuqdo ama in keliya TikTok laga soo muuqdo. waxaad noqon kartaa qof qoraa ah oo markaasi content creator qoraa ah ayaad noqon kartaa. waxaad kaloo noqon kartaa qof markaasi voice over sameeyo, inaad codeysid muuqaal, aad codeysid, inaad documentary aad turjuntid iyo waxyaabahaas ayaad samayn kartaa. weliba inaad podcast aad baahisid adigoona kasoo muuqanaynin, keliya codkaada aad content creation ahaan aad lacag uga samaysid. sidoo kale sawir qaado ayaad noqon kartaa, sawir qaade fadhiya ayaad noqon kartaa, oo sawiro ayaad qaadi kartaa. waxaad ku baahi kartaa baraha bulshada markaasi lacagta lagaga sameeyo. sidoo kale content creationka waxaa noqon kara sidaan hore usoo sheegay inaad muuqaal samaysid oo aad muuqaalo aad diyaarisid. muuqaalada aad diyaarisay inaad ku baahisid baraha bulshada markaasi Facebooka, YouTubeka iyo TikToka. sidoo kale qoraalna waad samayn kartaa oo qoraa waad noqon kartaa, oo markaa waxaad diyaari kartaa maqaalo fadhiya ayaad diyaari kartaa, blogyo ayaad qori kartaa oo ku saabsan caafimaadka, ku saabsan nutritionka iyo weliba waxyaabaha markaasi qoraalka ku tacalluqa ayaad samayn kartaa adigoo markaasi lacag ka samayn kara. marka xirfaddan content creationka bilow oo waqti geli, noloshaada ayay bedeli doontaa. haddii aad arday tahay ka faa'iideyso, haddii aadan arday ahayn aad waqti u heli kartid waqtiyada part timeka ka faa'iideyso. waxay ka mid tahay waxyaabaha la yiraahdo dakhliga income-ka, waxyaabaha laga sameeyo ayay qayb ka tahay content creationka. marka ka faa'iideyso. xirfadda saddexaad aan isdhihi karo qofka raba inuu xirfad barta 2026 waxay tahay video editingka. video editingka waqti badan kaagama baahna inaad waqti aad u fara badan aad gelisid inaad video editor aad noqotid
uma baahnid. ugu yaraan 3 bilood ayaad ku baran kartaa xirfadan. haddii aad serious ka tahay ee aad joogtaysid ee aad markaasi u daba fadhiisatid dadka video editorada ama dadka bixiya koorsooyinka video editingka, amaba adiga aad markaasi isbartid oo aad ka baratid internetka iyo youtube-ka weliba aad ka baratid. 3 bilood kadib waxaad awood u yeelanaysaa marka xirfadan video editingka inaad ku shaqaysid. waa xirfad baahi badan ay ka jirto oo ay dad badan maanta danaynayaan in muuqaaladooda loo hagaajiyo. marka xirfadda saddexaad aan kula wadaagay waxay tahay xirfadda video editingka. xirfadda afraad waa iyadana xirfad aada muhiim u ah. dhalinyaro badan ayaa ku shaqaysta, dhalinyaro badan ayaa lacag ka sameeya oo qaarkood ay kambaniyo ay furteen oo anigu saaxiibayl ah. waa xirfadda graphic designka. graphic designka waa naqshadeynta, qurxinta, sameynta loogooyinka, boosterada, flyerska, thumbnailada iyo shahaadooyinka iyo weliba business cardska inaad samaysid. haddii markaad baratid graphic designka lacag ayaad ka samayn kartaa oo markaa dad ayaad ugu adeegi kartaa. xirfad waqti aad u fara badanna kaaga baahan maahan inaad baratid oo waa xirfad aad u fudud oo muddo 3 bilood ah aad ku baran kartid. haddii aad rabtid waxaad adeegsan kartaa ama aad samayn kartaa copy paste. maantan kuwa hadlaya dad waxaa jira copy paste lacag ku sameeya oo markaasi thumbnailo, id kaaro, shahaadooyin markaasi dad kale ay sameeyeen ay markaa re-edit intay ku sameeyaan dan lacag ay ka sameeyaan. haddii aadan garanayn sida photoshopka iyo lightroomka iyo barnaamijyada kale lagu hagaajiyo ama lagu sameeyo graphic designka, waxaad keliyaad baran kartaa Canva qaabka loogu sameeyo graphic designka, boosterada, id kaarada, loogooyinka iyo waxyaabaha markaasi soo hoos gala. dan markaa sidaa aad lacag uga samayso adigoo markaa dadka raadsanaya isku noqonaya qof markaasi xayeysiin asaga isku sameeya, dadka la xiriira, kadib markuu shaqadii soo helana halkaa ugu qabta ayaad noqon kartaa. si fududna lacag waad kaga samayn kartaa graphic designka. marka laga yimaado xirfadda graphic designka, xirfadda shanaad. xirfadan waa xirfadaha aan aadka ugu jeclahay. waa xirfad ka mid ah xirfadaha aan kusoo shaqeeyey muddo 5 sano ka badan aan ku shaqeynayo ilaa iyo maanta aan muuqaalkan duubayo. waxay ka mid tahay skillskayga ayay ka mid tahay, inkastoo aan dhinac kale aan u wareegay oo markaa xayawaanada iyo deegaanka dabiiciga aan aad focuska u saaro. xirfadan waa xirfadda sawir qaadista. xirfadan sawir qaadistu waa xirfadaha ugu muhiimsan. waa xirfadaha aan dhihi karo qofka barta lacag wuu ka samayn karaa. dhalinyarada maanta social mediaha ama dadka kaleba aan dhihi aad waxay u danaynayaan dad sawir qaadayaal ah oo professional ah oo ka qaada sawiro qurux badan. marka xirfadan baro, waqti geli, hay'adaad ugu shaqayn kartaa, wakaalad ugu shaqayn kartaa, dadka ama bulshada ayaad ugu shaqayn kartaa adigoo markaasi lacaga badan ka samayn kara. ay ku xiran tahay dadaalkaada, kartidaada iyo qofnimadaada. marka xirfadan sawir qaadista waqti aad u fara badan kaaga ma baahna. koorsada sawir qaadistu ilaa 5 bilood ayaad ku baran kartaa iyo weliba ka yar. waxay ku xiran tahay markaasi adiga iyo furfurnaantaada iyo qaabkaad wax ku baran kartid. marka xirfadan sawir qaadista baro. waxaa jira iskuulo, waxaa jira qaab online loo barto. bara xirfadan sawir qaadista. hubaal inaad imaad celi doontid maalin haddii aad noqon sawir qaade aad isoo xasuusan doontid, welibana ay noqon doonto xirfadda aad ku baraysaysato ama xirfadda aad wax ku soo saaratid. xirfadda kale ee xigta xirfadaheena ee 2026 qofka dhalinyarada uu baran karo. xirfadan dad aad u yar ayaa ku shaqaysta. markaan baaritaan sameeyey waxaan ogaaday in dhalinyarada xirfadan ku shaqaysta ay aad u yar yihiin. xirfadan maxay tahay haddaba? waa xirfadan digital marketingka. waa suuqgeynta digitalka. in markaasi aad suuqgeyn
aad samaysid adigoo markaasi u maraya internetka dhexdiisa adigoo markaasi maraya oo markaasi samaynaya xayeysiino digital ah adigoo samaynaya oo marka ay dadku ama dad audience aad gaarsiisid product ama service company uu leeyahay. maanta waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan oo tiktoker ah laakiin qaabka ay u isticmaalaan digital marketingka uu ka duwan yahay qaabka aan kula wadaagi doono. badanaa haddii ay kugu xiran tahay community aad u badan 25,000 30,000 iyo 40,000 iyo 100,000 iyo qaarkoodba ka badan 500,000 oo qofood haddii kugu xiran tahay tiktoka waxaad awood u yeelanaysaa in aan digital marketing aad samaysid adigoo markaasi ka faa'iidaysanaya dadka markaa ku xiran social media weliba tiktoka. marka kaliya waxaad u baahan tahay waa inaad badeeco ama service aad iibgeysid adigoo u dhex maraya internetka adigoo goobaha kambaniyada productyadooda soo baahinaya oo dadka markaa u sharaxaya inay markaa productigan ay tijaabiyaan ama productyadan ay iibsadaan dan marka adigu lacag aad ka samaysid. dhowr qaab lacag waa lagu sameeyaa inaad commission aad ka qaadatid kambaniga ama shirkadda markaasi aad xayeysiinta aad u samaynaysid iyo ogow in qaab content creation ahaan aad lacag uga samayn kartid oo haddii tiktokaaga aad lacag muuqaalada aad soo dhigtid aad lacag ka samaysid lacag waad ka samayn kartaa. soo marka xirfadan baro digital marketing waa xirfad aad iyo aad muhiim u ah waayo qaabkii hore ee maaragta xayeysiinta waa laga guurayaa oo waxaa loo guurayaa qaab digital ah. maanta haddii aad ku aragto product lagu xayeysiinayo tiktoka oo qofkaasi Soomaali uu yahay uu ku kala dhigo in productigan uu yahay product aad u wanaagsan waxaa lama huraan inaad iibsatid aad ku qanacdid in qofkaasi uu kaa iibiyo productiga isagoo markaasi lacag ka samaynayo. soo marka adiga maxaa kuu diiday adiga waad samayn kartaa tiktoker haddaad tahay weliba aaday kugu fududahay marka digital marketingka lacag ka samey 2026 waqti aad fara badan kaagama baahna ma ahan xirfad kaaga baahan inaad bil ka badan aad waqti gelisid haddii aad aftaan tahay aad maaragtay qaabka wax loo iibiyo aad baratidna waxaad awood u yeelanaysaa in markaas lacag ka samaysid. marka xirfadan digital marketingka baro. xirfadda ugu dambeysa aan muuqaalkan kusoo gabagabaynayo waa xirfad daba socotay xirfadii hore laakiin waan ka reeb waa 2 skills. waa xirfadda videographiga oo muuqaal duubista aad iyo aad ayuu muhiim u yahay oo waxaa jira qaab maaragtay lacag lagaga sameeyo kambaniyada soo koraya iyo maaragtay businessyada yaryar ee markaa danaynaya in muuqaalo loo duuba ayaad lacag ka samaynaysaa oo businessyadu waxay u baahan yihiin in productyadooda ay qaab digitalized ah ay dad u gaaraan. haddii dukaankan la furo ama carwadan la furo ama maaragtay goob ganacsi la furo goobtaas ganacsi dadka deegaanka kaliya ku sugan inay gartaan ayaa dhici karta laakiin haddii inta muuqaal laga duubo productiga iyo serviceka ay qabtaan aad muuqaal qurux badan inta ka duubtid aad social media aad u isticmaashid amaba iyagoo ay isticmaalaan maadaama aadan adiga digital marketer aadan ahayn ayaga ayaa maaragtay social media platformyadooda dhiga kara oo waad aragta maqaayadaha dukaamada iyo carwooyinka iyo hoteelada maanta bogag ayay leeyihiin oo dadka muuqaalada duubanaya waa dad videographer ah oo markasta waxay u baahan yihiin dad markaa professional videographers ah oo u sameeya muuqaalo tayo leh u edit garaya si qurux badanna markaasi ugu wareejiya si markaa ay ula wadaagaan clientigooda weliba qaab digital ah. oo maanta waxaa laga yaabaa in aad aragto muuqaal qurux badan oo hotel ama maqaayad laga soo duubay dadka soo duubay waa videographers. soo marka waxaad barataa xirfadda videographiga ogaal waxaan waa inaad lacag aad ka samaynaysid oo waxaan xasuustaa xirfaddan wax ka yar 30 daqiiqo inaan lacag aad u fara badan ka qaadan jiray anigoo muuqaalo aad u gaagaaban u samayn jiray. marka adiga haddii aad dhalinyaro tahay xirfaddan baro 2026 waxay noqon doonaa xirfadaha aad lacagta ka samayso doo ilaah ka raali noqdo. markasta ogsoonow in aad skills baratid
skillska aad ku shaqaysto waxay kaaga baahan tahay waa mindsetkaaga, waa habkaad u fikirto, habkaad adiga isku aragto iyo habkay dadka ku arkaan. Markasta qaabkaad isku aragtaa ayayna dadka ku arkayaan. Haddii aad isku aragto inaad waxba qaban karin, dadku waxay ku arkayaan inaad waxba qaban karin. Marka skills walba aad baratid inaad isdhiibtaa laga yaaba, ayaysan dhicin marka inaad isdhiibto oo soo bandhig meelaha markaasi la isku soo bandhig xirfadaadana dadka tus inaad xirfadan aad leedahay. Marka 7 xirfadood ayaan jeclaysiinaa muuqaalkan kugula wadaago. 2026 waxaad ku dadaashaa inaad skills kale aad baratid. 2 ama 3 xirfad inaad baratid ku dadaal. Oo skillsku mar walba waxay naftaada ka bedelayaan ama waxay noloshaada ay ka bedelayaan inaad ku shaqaystid skillska. Marka muuqaalka halkaas ayaan kusoo gabagabaynaa. Waa inuu muuqaalkii waxaan kaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum.